waxyaabaha qaladaadka ee ragga Soomaaliyeed ay galaan waxa kamid ah ee waliba xaasaskooda ay ka galaan qalad ay cid kale ka galaan ma aha ninba wuxuu guursanayaa gabadh waxa laga yaabaa mushahar yar oo aad u yar inuu ku shaqeeyo ama uu shaqo la'aan yahay gabadhaasi way jeclaanaysaa waxayna ku qancaysaa wax la'aantiisa inay ugu samirto oo sidaas uu yahay kula noolaato ay ku guursato dhulka in salli loo dhigo ayaa dhacda oo ay ku qanacday sidaas kula seexato iyo halkaas ku qanacsanaato iyadoo qayrkeed sariiro iyo fadhiyo iyo jiifaf qaali ah loo dhigo waxay ku qancaysaa oo Ilaahay ka baryaysaa markuu ninkaaga Ilaahay wax siiyo ayaad wax walba heli doontaa hadda ninku jecel ayaad haysataa bay niyadu ku dhisanaysaa sidoo reerkii sida u dhisan yahay caadi u yihiin ninkii waxa laga yaabaa haduu wax yar haysto wax yar ka shaqeynayay inuu mushaharka loo kordhiyo shaqo wanaagsan helo ama wax yar haduu ka ganacsanayo ganacsi yar haysto oo u bulaalo Ilaahay uu barakeeyo markuu wax helo Ilaahay jeebkiisa wax soo galiyo halkii uu reerkiisa hore ka fikiri lahaa reerkiisa wanaajin lahaa oo ka fikiri lahaa gabadhiisii intaas oo sano u soo sameysay inuu nolosha ka bedelo oo kor u qaado oo u abaalgudo ilaan gabadhan jabay kula soo martay way ku soo dadaasho way ku soo rafaaday kalaaba judhiiba maskaxdiisa ku soo dhacaysa aboo heelo maxaa dhacay sayna kala maskaxdaada ugu soo dhici soo ma aha horta inaad reerkaagii hore wanaajisid gabadhan ku soo samirtay intaas oo sano soo inaad u abaalgudid ma aha soo inaad wanaajisid ma aha hadhowna wuxuu kula soo taagay afar buu Ilaahay idin baniyay waarun afarta waa la idin baniyay inkastoo in waajib idinku ahayn oo Ilaahay faralba idinku tahay oo idin oranin waa la idin baniyay darabtana waad guursan kartaan darabtana waad iska deyn kartaa afarta macnaha hadii lagu baniyay macnaheedu ma aha inay waajib kugu tahay laakiin waa bad guursan kartaa horta soo inaad reerkaaga hore wanaajisid ma aha haddayba nin jeebkiisa lacag soo gasho oo wax yar uu dareemaba inuu Ilaahay wax siiyay kala sababta uu ugu fikra maxay tahay soo dameer xumo ma aha inaad kala ku fikirtay wax la'aanta kuugu soo samirtay oo taagan adoon waxba siinin gabadhii markii sida ninkii uu u galo waxay ka shalaayaysaa maalinkii guursanaysay iyo intii sanay u soo samraysay iyo intii sanay nolosha adag kula soo nooleed ayay ka shalaayaysaa inta la guursiga uu la guursaday ay ka xumaatay in ka badan ay waxay ka xumaanaysaa samirkii u soo samraysay ka shalaayaysaa nolosheeda inta ka dhiman ciil iyo shalayta ay ku dhamaysanaysaa ninkii baasaan ii galay ayay ku leedahay marka waxa dhibaato ah markuu Ilaahay wax ku siiyo inaad xasuusatid guurka Ilaahay baa ku baniyay wad guursan kartaa laba dumar saddex afar buu Ilaahay ku baniyay muslimaad tahay laakiin horta reerkaaga hore wanaaji oo gabadhii ku soo samirtay wanaaji oo gabadha u abaalgud kadib markaa guurso markaas cidna kuma eedaynayso